بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكسو دواتان يوتيوب channel كينا كينان كود إذا فيسبوك بيج كينا إنجنير إبراهيم عثمان. عشر كينا مانتا وحوكا هالدي دونا إنترنت سيفتي أما أمانكا مريكتا. الموضوع عشر كان أو نقول دونا عشر كيني لبعض أنا كسمينا كورس كان إنترنت سيفتي كي هراء أن هرد عيسى كدياريي مقال قاري muddo gaaraysa 28 daqiiqo oo isagana aad ka heli kartaan channelka ama YouTube channelka Kenan Code. isagana waxaad idin soo dhigi doonaa muuqaalka hore qaybta hoose ee description-ka si aad isku xidhba lagu sameysaan muuqaalka hore iyo kan. muxuu yahay marka ciwaanka uu wato muuqaalkeenan xiga waxa muuqaalkan ciwaankiisu uu noqon doonaa sidaad wada aragtaan your browser security features oo ah astaamaha amaaneed ama security ee uu leeyahay browserka aynu ka isticmaalno internet-keena oo ay lama horaan tahay in mar walba browserkaad internetka ka isticmaalaysa uu leeyahay qayb ka mid ah astaamaha security-ga oo macnaheedu yahay in security laftirkiisa marka ay timaado ay laba midba ku dhacdo in qayb aad isticmaasho software-ada security-ga ka mid ah iyo in software-ada browserska internetka ka gashid ay leeyihiin settings-kooda haddii la sii guda galo qaybo fiican oo ka caawin kara inay ku maareeyaan kuna maamulaan activities-kaaga iyagoo xoojinaya ama adkeynaya ammaankaaga internet ama isticmaalkaaga internet-ka. muuqaalkeenan halkan ayaan ku bilaabi doonaa. casharkanna waxaa idiin soo jeedin doonaa anigoo ah Ibrahim Ismaan Cabdinuur. halkan uga wada jeedaan waxaa la soo sameeyey baaritaano sanadkani waa 2019 marka waxaa lagu leeyahay in ka badan 1.76 ama 1.76 bilyan oo shirkadood ayaa waxaa laga jabsaday ama loo dhacay xogo ay leeyihiin oo muhiim ah report ah sanadku markuu ahaa bishii koowaad sanadkii 2019. sidoo kale software-rada la yiraahdo ransomware-ka oo ransomware haddaad maqashaan waa qaybo weerarada jabsiga ama hacking-iska kamid ah. tusaale ahaan waliba qaybtan ransomware-ku waxay timaadaa in qofka systemkiisa inta laga xidho ama waxyaabo virus lagaga xanibo hadhowna laga weydiiyo lacag rikata ama haddii aad waxa soo kale nisiin weydo ciwaankaaga ku soo celin mayna ama computerkaaga ku ogolaan mayna furto oo kale. sidoo kale marka ransomware-kan aynu sheegnay ayaa waxaa la sheegaa inay dhacaan 14 ilbiriqsi ee walba marka 14 second marka ay ku dhaafto dunida qiimeyn aan la soo sameeyay ayaa waxay sheegaysaa in mar walba ay dhacaan ransomware attacks. haddaba 43 boqolkiiba oo ah weerarada cyber attacks-ka internet-ka la iska weeraro ayaa waxaa lagu hojimay ama lagu weeraray shirkadaha ganacsiga ee yaryar. qiimeynteena saddexaad waxay noqon doontaa in 65 boqolkiiba shirkadaha waaweyn ay leeyihiin in ka badan ama ay u shaqeeyaan in ka badan 500 oo shaqaale. haddaba 500 ee shaqaale maxaa la sheegay waa kuwa waxaa lagu yiri have never changed their passwords. shirkadaha dunida ee waaweyn boqolkiiba 65 waxay leeyihiin baa lagu yiri isu geyn 500 oo shaqaale oo aan weligood password ka bedelin. marka la isu geeyo baa lagu leeyahay shirkadaha waaweyn 65 boqolkiiba shaqaale gaaraya 500 passwordkooda weligood ma aanay bedelin hadday noqoto passwordka social media iyo accounts-ka kala duwan ee ay isticmaalaan. qiimeyntan xigta iyadana waxaan sheegay in phishing emails-ka ay iyagu responsible for about 91% of cyber attacks. waxyaabaha emails-ka phishing-ka ah ee falsada ee viruska la isku soo raaciyo ee hacking-iska ku jira ayaa waxaa la sheegay in viruska email-ka dadka loogu dira ay mas'uul ka yihiin 91% weerarada cyber attacks-ka ka dhaca shirkadaha waaweyn. marka shirkadaha waaweyn badanka hacking-iska ka dhaca 91% waxaa la ogaaday ama la sheegay in iyagu sabab ama mas'uul ka yihiin hacking-iska shirkadaha waaweyn ku dhaca. qiimeynteena xigta iyadana waxaan ku arki doonaa social media hacking baan ku eegi doonaa ama social media hacking oo ayagana baraha bulshada hacking-iska ka dhaca. waxaan halkan ku aragnaa in 30 milyan oo Facebook accounts ah ama ciwaano Facebook ah la jabsaday xogtoodana loo dhacay sanadku markuu ahaa 2018 ama 2018. 30 milyan tiro yar maaha marka waxaa laga yaabaa ama sabay tahay in dunida oo dhan la isku soo ururiyay qiimeyntii lagu sameeyay. qiimeynta xigta social media hay'aduna waxay noqon doontaa
in 47% isticmaalayaasha social mediaha isticmaala ama baraha bulshadu ay arkaan spams fara badan amase waxyaabaha spamka la yidhaahdo xogta falsada viruseska ay ka mid yihiin ama xog loogu talagalay in loo ekaysiiyo xog xaqiiqo ah balse ay ka dambeyso ama gadaasheeda ay tahay khiyaano iyo maleegid lagu shirqoolayo dadka. Tusaale ahaan in shirkad weyn xayeysiiskeeda oo kale la sameeyo ama ganacsi been abuura qofka intuu xayeysiis u samaysto kadib uu ku yiraahdo xogtaada bixi xogtaadana saa lagula wareego. Marka xogta noocaas waxaa lagu leeyahay 47% ayay dadka social media isticmaala ay ishooda qabataa. qiimaha saddexaad ee hackinska ka dhex dhaca social media ayaa waxay sheegayaan in inta badan shirkadaha ganacsiyada ay la daala dhacaan hackinska cyber attackska 2018. haddaba shirkadaha waaweyn ee ganacsigu marka ay 2018 ayagu aad ula daala dhacayeen ama ay dhibaato badan ay ka marayeen cyber attackskan internetka hackinka lagu sameeyo ayaa haddana 75% waxay report gareeyeen inay heleen emails nooca khiyaamada. marka halka waxaad ku ogaanaysaa in 25% dadka shirkadaha waaweyn hackinka la kulmaa aanay gudbin in la jabsaday in kale laakiin intooda gudbisay lagu qiyaasay 57%. qiimaha afraad ee social media hackinka ayaa waxay tahay in 43% wadanka UK, United Kingdom ama British ama Soomaalida soo taqaan Ingiriisku ganacsiyadoodu ay report gareeyeen in security-gooda loo dhacay ama la weeraray intii ugu dambeysay 12 bilood. marka 12 bilood u dambeysay waxaa si joogto ah loogu dhacay ama loo jabsanayay xogaha shirkadaha waaweyn ganacsiga ee dalka Ingiriiska. qiimaha shanaad ee ku tacalluqda social media iyaduna waxay noqon doontaa in hacking daraasad lagu sameeyay hackinska 2017 ay muujinayaan in ka badan ama ku dhawaad 61% xog loo dhacay shirkadaha waaweyn oo waliba ay ku jiraan wax ku dhow 1,000 shaqaale. sanadii 2017 ama 2017 xogaha loo dhacay intooda badan ay victims oo ahaayeen dadka shirkadaha waaweyn iyo marka lagu soo daro ama la raaciyo 1,000 shaqaalahooda. sidaa darteed 61% 2017 hackinska la sameeyay waxay muujinayaan in ay ahaayeen shirkadaha waaweyn iyo 1,000 kamid ah shaqaalahooda. qodobka lixaad ee qiimeynta lagu sameeyay hackinskii dhacay dunida sanadihii u dambeeyay ay waxay muujinayaan in daraasadada lagu sameeyay hackinska internetka ka dhaca ama jabsiga iyo xogaha loo kala gudbo sanadii 2019 ay muujinayaan in ka badan 24,000 oo program wasakh leh ama viruses ah laga bloogay ama la joojiyay in lagu soo daayo app storeska. maalin walba ayaa laga bloogaa ku dhawaad 24,000 oo program of viruses wata programka app storeka ee laga soo dego softwareska mobilada ku shaqeeyaan mobilada iOS-ka ama iPhone-ska. qodobka toddobaad ee qiimeynta hackinska sanadada u dambeeyay dhaca ayaa wuxuu tilmaamay in mobilada systemkoodu yahay Android, Samsung ha noqdeen Huawei ama kuwada kale ay yihiin kuwada ugu badan ee hackinska weerarka loogu soo qaado. qodobka sideedaad ayaa wuxuu muujinayaa isna in haddii aad u baahato ciwaan la soo jabsaday oo qof kale uu leeyahay ugana baahato inaad iibsato website-dada la yiraahdo dark webka aad uga heli karto qiimo dhan $1 oo dollarka Mareykanka ah. intaa waxaa ku dhan waa hordhaca muuqaalkeena ama casharkeena oo aan rabay inaan halkaa aynu tusaaleynaan iska siino iskana dabageyno sida ay u dhacaan hackinska dunida ka dhaca iyo qaybahooda kala duwan. aan malaynayo inay xogtaas aan idin wadaagay idinkaga filan tahay xogaha dhaca. waxaana ujeedkayguna uu yahay in aynu ogaano in maadadan laftirkeedu ay tahay ammaanka internetka. marka daraasaadkaas aan soo sheegnay oo dhan marka aad ogaato iyo khasaaraha ka jira dunida aad noqon doonto qof isaguna ku feejigan ama ku baraarugsan inuu ilaalin karo xogihiisa gaarka oo ah isagoona ka bilaabaya adkeynta ammaanka ciwaanadiisa kala duwan. sidaan hore usoo xusnay ciwaankeena casharkeena wuxuu noqon doonaa your browser security features oo ah ammaanka astaamaha browserka aad isticmaalaysid maadaama ay muhiim tahay. browserka waxaynu uga bilownaynaa in wax kala hayn oo ah qofku markasta uu internetka wax ka raadinayo meesha koowaad uu soo galo ay tahay softwareska ama applicationska browserska ayna muhiim tahay in uu qofku ka warhayo ammaanka softwareka uu isticmaalayo. haddaynu casharkeena iska sii bilaabano
your computer faces baa la yidhi computerkaaga waxa uu wajahaa ama uu la kulmaa different threats wasakh kala duwan ama tuugo kala duwan ayuu la kulmi karaa labadaba odhan karnaa whenever you browse the web markasta aad website isticmaasho ama website aad booqato computerkaaga wuxuu la kulmi karaa ama wajihi karaa waa wasakh ama tuugo kala duwan including baladi wasakhda ama tuugaha kala duwan ay ka mid yihiin viruseska oo ah iyaguna viruseska programka computerka hardware ahaan iyo software ahaanba u weerara computerka malwareska and spyware intaba ay ka mid yihiin waxyaabaha viruseska computerska lagu weeraro haddaba waxaa lagu leeyahay the good news is baa lagu yidhi your web browser has a lot of built-in security features haddaba warka fiican ee adiga niyadaada dejin karaa waxa uu yahay in browserkaaga aad internetka ka isticmaasha web browserkaagu noocu yahay ha noqdee uu leeyahay astaamo ammaan oo lagu dhisay ama markii ugu horeysay la sameynayay astaamo ammaan oo lagu soo raaciyay astaamahaas maxay tarayaan marka to help baladi si ay kaaga caawiyaan protect your computer si aad u ilaalisid computerkaaga haddaba let's take a look baladi aynu eegno at some of the most important features astaamaha ammaanka aynu soo xusnay qaybahooda ugu muhiimsan oo ka mid ah kuwaasoo you should know about loo baahan inaad adigu waxun ka ogaato as well as some simple tips you can use to stay safe online kuwaasoo sidoo kale noqon kara xeelado ama xirfado fiican oo aad u adeegsato si aad online-ka ugu sii jirto ama aad u isticmaasho online-ka adigoo ammaan ah and check the web address isna ciwaankan wuxuu xusayaa waa tilmaamta ugu habboon ee aynu imika dad badan aynu aragno aan isticmaalin taas maxay tahay mar walba inaad hubisaa ciwaanka website-yada aad geliso halkan balaan si fiican u yara dhugano malicious websites malicious websites often use deceptive web address to trick users inta badan waxaa jira website-yadan waxyaabaha malicioska ah ee halista wataa ay lagu kaydiyo ay inta badan isticmaalaan addressyada websiteska caadiga si ay kugu khiyaameeyaan ama ay u manahabaabiyaan userska ama isticmaalayaasha websiteska isticmaalaya halkan waxaanu ka faa'iideynaa inay tahay websites ay jiraan lagu kaydiyo ama ay ku jiraan waxyaabaha halis gelinaya computerkaaga iyo deviceska kale mawluud ay ka mid yihiin aad isticmaalayso website-kana ka booqanayso iyagoo u ekaysiinaya website-yada caadiga example baa xaggan lagu siiyey websiteskan si fiican haddaan u eegno waa www.wellfargo.com isagu waxaa lagu yidhi wuxuu aada ugu eegyahay website-kan kale oo ah wellsfargo.com but it is missing the s in the middle baa lagu yidhi laakiin meesha waxa ka maqan website-kani waa sta halkaa ka muuqata ayaa bartaa ka maqan marka haddaa website-kan eegtid waa wellsfargo kana waa wellfargo marka waxaa laga yaabaa in halkaas oo kale website-kan wellsfargo aad adigu ka adeegan jirtay online ahaan aad wax uga iibsan jirtay laakiin lagu keenay linki ama magac ahaan isaga usoo dhow kaasoo lagugu khaldayo haddii qofku uusan markaa si fiican uusan ugu samayn check the web address marka lagu leeyahay haddii aadan addresska website-ka aad booqanayso aadan si fiican u hubin ama aad checking ugu samayn lagugu khiyaameyn karo hal xaraf iyo wax ka badan sidoo kale waxaa lagu xusayaa ama mar walba lagu sii xasuusinayaa in aad samayso waxyaabaha lagu yidhaahdo double check inaad samayso oo waxaa lagu leeyahay imika hadaynu halkan eegno waxaa mar walba adiga lagu xasuusinayaa in aad samayso waxyaabaha la yidhaahdo double check oo ah in laba goor aad wax hubiso iyo wixii ka badan double checking baa la yidhi marka the domain name is a good way to ensure you're going to real ama to the real marka aad samaynayso waxyaabaha qaar ee ka midka yihiin inaad laba jeer hubiso ama mar hubi ama laba jeer hubiyo in magaca website-ka aad laba jeer hubisaa waxaa la yidhi waa wadada ugu wanaagsan ee aad ku hubsan karto inaad adigu soo booqatay website-ka saxda ah sidoo kale trusted site not a phony site with a similar web address marka inaad laba jeer hubiso aad double check ku samayso website-ka aad booqanaysid iyo magaciisa iyo address-ka waxay ka caawinayaan inaad website-ka saxda ah aad ogaato aan ahayn website-kan beenta ah ee magaca usoo dhow website-ka saxda ah wata some of browsers baa la yidhi will even try to make the domain name easier to read baa la yidhi web browserska qaarkood waxay ku fududaynayaan inaad si fudud ku akhriso domain name-ka ama magaca websiteska tusaale ahaan you can see that wellsfargo.com uses a darker color in the address bar baa la yidhi waxaa aragtaa in website-kan laftirkiisu isticmaalay color mugdi ku jiro baa lagu yidhi oo colorka uu isticmaalayaa oo inta kale marka laga reebo uu isticmaalaya color mugdi ah waxaa laga hadlayaa waa midabka farta
waaye aynu kusii soconno. tilmaamteena kale ee casharkeenu tilmaamaya waxay tahay in aad mar walba samayso waxa la yidhahdo look at the security symbol, in aad mar walba eegto calaamadda qofilka. oo website-ada intooda badan markaynu arkayno intooda security-ga ama ammaanka ah waxay leeyihiin calaamad la yidhaahdo security symbol oo ah calaamadda qofilka ah. calaamadda qofilkaas maxay tilmaamaysaa? waa tan in website-kaasi muxuu yahay, inuu security yahay oo la geli karo ama la booqan karo. bal casharka aynu eegno sababta uu inoogu leeyahay. waxaad eegtaan calaamadda qofilka. Some websites baa layidhi website-ada qaar will display a lock symbol. waxay kusoo bandhigi doonaan calaamadda qofilka ama astaanta qofilka in the address bar, iyagoo kasoo bandhigaya qeybta address barka. address barka waxaa la yidhahdaa waa qeybtan lagu soo bandhigo website-ka magaciisa ayaa la yidhahdaa address bar. dadka qaarna URL-na waa la qoran karaa. waaye sidoo kale waxaa lagu yidhi marka ay kusoo bandhigaan calaamadda qofilka address barka, this is most commonly seen with certain types of websites. calaamadda qofilka marka in address barka ama qeybta magaca website ku qoran lagu soo bandhigaa intooda badan waxaa laga arkaa waa website-yada qaar ah like online stores, sida online-ka storeska, bakhaarada online-ka wax lagu iibiyo, and banking sites iyo websiteska bangiyada ay isticmaalaan caalamiga. waayo qofilku haddaba muxuu micnihiisu yahay? waxaa lagu yidhi this means the website is using an HTTPS connection. waxay ka micno tahay ama ay ka dhigan tahay in qofilka uu wato website-ka magaciisu in uu isticmaalayo connectionka la yidhaahdo ama isgaarsiinta la yidhaahdo HTTPS oo loo soo gaabiyo Hypertext Transfer Protocol secure ah, oo kaasoo waxaa lagu yidhi ka dhigaya safe, make it safe to enter your personal information. waxay kaasi haddaba HTTPS kaas ama calaamadda qofilkaas ay ammaan ka dhigaysaa inaad gelin karto macluumaadkaaga shakhsiyan ama personal information-kaaga, magacaaga, magaca aabaha, da-daada iyo waxyaabaha la midka credit card kusoo raaco. You will also see HTTPS at the beginning of the URL. waxaa laga yaabaa ama sidoo kale waxaad ka arki kartaa ama aad ka arki doontaa HTTPS-ka inta ugu horeysa URL-ka. URL-kuna waa qeybtan magaca website-ku uu ku qoran yahay ayaa waxaa lagu yidhi URL-kan bilowgiisa ayaad waxaad ku arki doontaa HTTPS-ka. sidoo kale waxaa la yidhi you won't see the symbol on all websites baa la yidhi. calaamadan qofilka ah ee ammaanka tilmaamaysa kuma arki doontid baa la yidhi dhammaan website-ada, and that's okay baa la yidhi. taasina waa caadi. not all websites need this extra layer of security. website-adoo dhami uma baahna calaamadda qofilka. micnaheedu wuxuu yahay in website-ada qaar haddii aan lahayn qofilkan la geli karo ay caadi yihiin, laakiin websiteska markaad qofilkan ku aragtaana ay aad ugu sii fiican yihiin, in ammaankoodu fiican yahay oo dadku ku kalsoonaan karaan. kumana khasbana baa lagu leeyahay in qofilka loo yeelo, laakiin muhiimaddu waxay tahay in kuwa qofilka aan lahayn intooda badani aanay shaki ku jirin inay ku jiraan waxyaabaha halisa ama aanay ammaankaaga u fiicneen, laguna aamini karin xogaha sirta ah. si kasta ay ahaataba, however, you should avoid entering any sensitive information. waxaa loo baahan yahay ama waa in aad ka digtoonaato inaad geliso informationka ama macluumaadka sensitive-ka ee xasaasiga ah. marka websiteska aan qofilka lahayn waxaad ka taxadiri doontaa inaad geliso macluumaadkaaga xasaasiga ah sida credit card numberkaaga, numberka kaarka credit-ka isticmaasho. if you don't see this symbol in the address bar, mar haddii aadanba qofilka noocan aadan addresska website-kaadan ku arkayn, waxaa la rabaa inaad ka taxadirto ama aad ka hortagto inaad geliso macluumaadka xasaasiga ah aynu soo xusnay ee ay ka midka yihiin inaad geliso numberada credit cardska aad isticmaasho ama kaararka aad social media wax kaga iibsato. inta waxaa lasii raaciyay qodobkeena isna kale ama qodobka xigo ah update your browser regularly, inaad si joogtaa u cusboonaysiiso ama update ugu samayso browserka aad ka isticmaalayso internetka. oo maxaa looga baahan yahay inaad mar walba cusboonaysiiyo? new viruses and malware are created all the time. haddaba malwareskan iyo virusesku kuwa cusub ayaa jira oo mar walba la sameeyo. waqti walba waxaa la sameeyaa viruses cusub oo dadka lagu waxyeelanayo. sidaa darteed waxaa muhiim ah inaad mar walba browserkaaga si joogtaa aad u cusboonaysiiso. oo waayo haddii marba browserka la cusboonaysiiyo, browserka wuxuu la jaanqaadayaa security-ska cusub, kuwaasoo mar walbana viruses-ku haddii la cusboonaysiiyo security-gu inuu cusub yahay ay dagaalkooda sii cusboonaan doono. laakiin haddii update-ka uu dhacsan yahay software-ka isticmaalaysa, security-giisuna hooseeyo, viruses-ku ka awood badin karo. your browser will usually notify you when it has an update available. haddaba browserka aad isticmaashaa nooca doona ha noqday Chrome, Firefox, Opera Mini,
edit kana yiraahdaan imika update-ka dhamaantood marka update cusub uu soo baxo iyaga ayaa ku digaya oo ku tusaya in update cusub uu soo jiro. But you always have the option to update manually. Laakiin mar walba adigoon suginba in lagu soo sheego si manually ah ayaad u update garan kartaa oo adoon suginba update waad ku samayn kartaa. Tusaale ahaan waxaan update garan doonaa Google Chrome keena sidoo kale waxaanu ku tusi doonaa qaabka update-ka loogu sameeyo. waxaad soo gali doontaa marka koowaad browser-kaaga qaybta sare si aad u aragtaan Chrome ay ku qoran tahay help aad iman doontaa. kadib waxaad kusoo dhufan doontaa waa about markaad timaadid halkan waxaad ka aragtaa in version numberka halkan Chrome-kaygu halkan ka muuqdo. sidoo kale la leeyahay Google Chrome is up to date. Google Chrome-kaagu waa update gareysan yahay. marka about-ka haddii aad timaado uusan ku update gareysnayn update ku samee. muhiimadda update-ka in loogu sameeyaa ay habboon tahayna waa soo sheegnay. halkaas ayaan ku joojinayaa casharkeena maadaama uu dheeraaday marabin daqiiqadaha inuu gaadho laakiin koroska ayay ku xidhan tahay. halkan ayaan ku joojinayaa muuqaalkeena maanta. muuqaalkan sii share garee wala wadaaga asxaabtaada wixii faallo iyo fikir ah noogu reeb qaybta hoose ee commentiga ama faallooyinka. like saar muuqaalka haddii uu ku cajibiyo haddii aad ku cusub tahayna page-keena ama YouTube channel-keena subscribe dhe muuqaalka xigeentan ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.